أن Somalian Itoobiya iyo Soomaaliya xiriirka ganacsi iyo kan duulimaadka rayidka ah ma jirto wax isbedel oo ku yimi. Arrin ayaa jirtay shalay dhacday. Arrintaasina waa la xaliyay. kulanti wacan daawadayaal meel kastoo ay joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka nuxurka wararka oo inta badan aad ka daawataan channelka galka wararka qodobada aan idinku hayna barnaamijkana waxaa ka mid ah war-saxaafadeed ka soo baxay urur goboleedka IGAD oo si weyn loogu taageeray mowqifka dowladda Soomaaliya iyo waliba in aan lagu xadgudbi karin madax banaanida dhulka Soomaaliyeed kaas oo u qusgooyay dowladda Itoobiya iyo waliba damaceedii ururka jaamacadda carabta oo si weyn u taageeray dowladda Soomaaliya meel adagna iska taagay damaca guracan ee dowladda Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar oo buudka la kormaray dowladda Itoobiya isagoo sheegay in dowladda Itoobiya ee geeska Afrika ay ka wado fadqalalo iyo waliba xaalado amniga gobolka waxa u dhimi kara Itoobiya oo arrintaasi ka jawaabtay iskana diiday eedaynta uu u jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku daawan doontaan barnaamijka nuxurka wararka oo inta badan aad kala socotaan channelka galka wararka aan ku bilownay waxaa magaalada Kampala lagu soo gabagabeeyay shirkii urur goboleedka IGAD waxaana la soo saaray war-saxaafadeed loogu hiiliyay dowladda Soomaaliya madaxda urur goboleedka IGAD ayaa meel uga soo wadeejistay xadgudubka dowladda Itoobiya ay ku sameysay madax banaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya shir madaxeedkan oo ahaa mid degdeg ah waxa uu noqonayaa kii 42aad ee urur goboleedka IGAD waxaana lagu qabtay magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaana laga soo saaray dhowr qodob waxaana ugu muhiimsanaa laba qodob oo kala ah kow in madaxda urur goboleedka IGAD inay isku raaceen inay la taabtaan tahay madax banaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxda ayaa sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in heshiis kasta oo cid lala galaya ay tahay cid lala galaya dowladda Federaalka ee Soomaaliya dadka iyo dalkana inay iyadu matasho oo saxiixeeda iyo heshiiskeeda uu iyada muhiim yahay qodobka labaad ee shirkaasi lagu soo qaaday ayaa waxa ay tahay in dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay tahay dowladda kaliya ee laga hadli karo masiirka iyo matalaadda rasmiga ah Soomaaliya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa shir gudoominaya kulankan degdega ah ee urur goboleedka IGAD madaxdoodu ay ku yeesheen magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaana ka qayb galayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynayaasha dalal kale oo ka tirsan urur goboleedka IGAD Itoobiya ayaa markii shirkan la iclaamiyay waxa ay sheegtay inaysan ka qayb gali karin shirkaasi iyadoo oo soo jeedisay in dib loogu dhigo shirkaasi balse madaxda urur goboleedka IGAD ayaa ku adkaystay in shirkaasi la qabto xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD oo ka soo jeeday dalka Itoobiya isla markaasina soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya ayaa ka qayb galay shir waxaana bayaanka soo baxay ku saxiixnaa xogayaha guud taas oo Itoobiya ka dhigaya mid wax ku leh go'aanada ka soo baxay urur goboleedka IGAD ururka jaamacadda carabta ayaa ka arrinsaday laba arrimood oo kala ah xalka dadka Falastiiniyiinta ah ee dowladda Yuhuudda ee xasuuqa ku haysa iyo xiisadda u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya shirkaasi oo uu ka soo baxay warmurtiyeed ay wadamadu ku buhoway ururkaasi ay soo saareen ayaa waxa ay isla garteen in la xoojiyo taageerada amni xasiloonida midnimada iyo madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya isla markaasina Soomaaliya ay xaq u leedahay in ay si sharci ah ay ku difaacato dhulkeeda qodobka labaad ee ka soo baxay warmurtiyeedka ayaa waxa uu yahay in ururku uu si buuxa u taageerayo mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan arrinta isfahanka ee Somaliland iyo Itoobiya ay ku gaareen magaalada Addis Ababa in uu yahay mid faalsa ah oo aan shaqaynayn iyo inay taageerayaan mowqifka Soomaaliya ay arrintan ka taagan tahay waxayna ku taliyeen in Soomaaliya ay u gudbiso maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka balse warmurtiyeedkaasi kadib ayaa waxaa hadal soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar kaasi oo kiciyay falcelin ka timid dhinacyo badan oo ka mid ah wadamada carabta iyo waliba qaaradda Afrika
wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Masar ayaa shirka ururka jaamacadda carabta kadib waxa uu sheegay in dowladda Masar ay si buuxda ay u garab taagan tahay dowladda Soomaaliya balse waxa uu dhanka kale digniin u jeediyay dowladda Itoobiya isagoo oo sheegay inay cawaaqib xumo ay kala kulmi doonto xadgudub ay ku samayso shuruucda caalamiga ah balse intaasi oo kaliya hadalkiisa kuma ekeyn waxa kale uu raaciyay in Itoobiya ay noqotay isha kaliya ee ay ka soo burqadaan xasilooni darrada ka jirta gobolka Geeska Afrika waxa uu kale uu ku celiyay in taageerada buuxda ee ay dadka Masaarida ah ay la garab taagan yihiin xornimada iyo madaxbanaanida dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabkeedaba hadalkaasi ka soo baxay dowladda Masar Itoobiya waxa ay ka bixisay jawaab iyo waliba qodobo laga soo saaray shirkii ay ka yeesheen wadamada jaamacadda carabta ee ku buhoobay ururka carabta iyo sidoo kale hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Masar iyagoo si adag uga hadlay Itoobiya maxay tiri Itoobiya waxa ay sheegtay in ay diiday go'aankii ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ee quseeyay xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhaxaysa war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa waxa ay si adag u diiday dhammaan qodobadii ka soo baxay ku aadanaa shirkii aan caadiga ahayn ee isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ururka jaamacadda carabta wasaaradda ayaa waxa ay tilmaantay in qodobada ka soo baxay shirkaasi uu yahay isku day faragelin lagu doonayo in lagu farageliyo arrimaha gudaha iyo madaxbanaanida dalka Itoobiya afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in go'aankaasi uu yahay mid aan la aqbali karin Itoobiyana ay iska diiday sidoo kale waxa uu dhaliil u jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Masar waxa uu dhaliilay hadalkii ka soo yeeray ee ahaa in Itoobiya ay xasilooni darro abuurayso oo xaalka gobolka Geeska Afrika ay gelinayso qalalaase barnaamijkii nuxurka wararka ee kala socoteen channelka galka wararka oo naga inta aan ku kulmayno barnaamijkan lamid waxaan kaga tageynaa sidaas nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar sidoo kalena page-ka noo follow garee si aad markasta aad u hesho barnaamijyada halkan aan idinku soo gudbino